telefishinka Ariel ayaa booqasho ku tagay afaafka kantaroolka galbeed ee magaalada Ceerigaabo halkaasoo dhalinyarada ururka mutadawiciinta ee Hansoor ay ka hirgelinayaan dhisme argo ama calaamada suuq gelitaanka magaalada. dhalinyaradan oo ku shaqeynaya nidaamka iska wuxuu qabso ayaa dhismaan ay hirgelin doonaan ka qayb qaadan doona kor u qaadida bilicda magaalada Ceerigaabo. waxaana ugu horreynba warbixin telefishinka ka siiyay qaabka ay u soo agaasimeen hawshan qaar ka mid ah ururka Hansoor, injineerka hirgelinaya dhismahani iyo dhalinyaro kale oo dhammaantoodba gacanta ku hayay dhismahani. argadan markuu riyeehed laakiin maanta waxay noqotay waaqac dhaba, waxay tusaale cad u tahay oo maragmadoona oo markhaatiya in dhalinyaradu hadday isku duubnaato uliya diirka noqoto wax walba ay qabsan karto. in dhalinyaradu markay cududeeda muujiso, isku tashato, hadalka deyso, ficilka raaciso, wax allaale wixii niyadeeda ku soo dhacay qaban karto oo horumara. tan waa horumarkii gobolka. aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa ururka annagoo marka hore fikradda keenay, markii labaad ururka siinay, maantana ururka Hansoor oo maanta dhisaya argadii. barnaamijkayga inta qura noqon maayo uu ka sii ballaaranaya. waxaa ku xigaya iftiiminta magaalada. argadii maanta facekii koowaad waa kan, faceka labaad wuxuu ku xigay in la wada shubo maanta. insha Allah marka kale ku sii xigana waxa weeye inaanu wixii dambe bilicda magaalada hadday dhir beeris noqoto, hadday iftiimin noqoto inaanu bilaabno. waxaan leenahay dhalinyarada aynu wada tashano, wax badan baynu ka bedelanaa Ceerigaabo. waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dhalinyarada mutadawiciinta ah ee xoogooda sadaqadaysanaya ee magaaladooda iyo gobolkooda wax gelinaya. waxaan leeyahay bulshada gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Ceerigaabo waxaan ugu baaqayaa dhalinyarada ku habsaantay majlisyada qaadka, majlisyada qabyaalada, majlisyada muxuu ahaayay aan waxba soo kordhinayn lagu soo biira. maanta waad aragtaan bulsho waxay ku horumartaa oo ay ku tanaadaa oo tacab ay gashataa waxa weeye bulshada siday gobolkeeda iyo dhulkeeda u dhisto. waxaan leeyahay noqon mayso tii ugu horeysay haddaan nahay ururka dhalinyarada Hansoor. waxaanu soo wadnaa barnaamijyo ka badan kuwan oo ay ka mid tahay bilicsiintii, iftiimintii magaalada iyo barnaamijyo kala badan. waxaan halka baa uga jeedinayaa madaxda gobolka oo markii horena si qiimo leh iyo qaayalo nogala qayb qaatay dardargelinta hawshan, hadday tahay local governmentiga, hadday tahay gobolka iyo hadday tahay ganacsatada gobolka Sanaagba. waxaan leeyahay wali fari kama qodna. waxaa loo baahan yahay dhalinyarta kale ee iska joogta ee fadhida. waxaan leenahay isu taga oo gacmaha isqabsada. tan iyo wax ka badan baad hirgelin kartaan haddii ay isu tagaan. gacmo wada jir bay wax ku gooyaan. halkaas oo ka socdo dhismaha magaalada Ceerigaabo ka qayb qaadanaysa muuqaalka bilicda iyo soo gelitaanka qofka soo gelaya magaalada Ceerigaabo inay u shaqeynayaan halkan Ceerigaabo tahay. Ceerigaabo inuu ku soo dhawaado. dhismaheena wuxuu noogu kala qaybsan yahay afar face maanta laba ka mid ah ayuu marayaa, face 2 buu marayaa. insha Allah tacaala waxay noo hadhay facekii dowladda ama qaabkaas oo kala laydhkeediina leh. cabdiraxmaan maxamed xidig, telefishinka caalamiga Ariel TV, Ceerigaabo.